kani waa buqcaleed waa mid ka mid ah talisadii ugu waaweynaa ee deegaanka Garaadaar iyo Dhasaan hoos yimaada oo ay ku lahaayeen kooxaha khawaarijta argagixisada Daacish waxa iska cabir kalamayso kulmin ciidamada difaaca Puntland gacan ku haynta taliskan oo ahaa mid aad loo habeeyay isla markaasina ay u dhiseen buur iyo god ishaleelay ayuu ahaa taliskani isla markaasina ay qolfoofkan korkayga ku gadaaman ay ka hoos sameeyeen ciidaha dhagxaanta iyo shamiitada iyo ciidda ay ku wada gureen loo yaqaano difaaca ayay ka sameeyeen qolal kala duwan oo aad waxa leeyihiin qorin marabna dhigaysan ana qorin lacaga loo heenin isdada loo heenin ما دد ما هو هنا لكن دد كده مش مروان حمر جدا أنا كله حمر وين أنا كله dadkii deganaa ceel cali axmed oo qabiil ahay oo abgaal cismaan ahay war waxa waay hadii dhimana dhararka la iska cishaa war waxa rabnaa qabiilkii ilaahay qabiil quwad la ka dhigay intaasoo milyan ahay inay shabaabkan nafla caariga ah ilmahan wasaqda badan inay iska ciliyaan ee ummadii ma taqaan garabkooda ay la duulaan ee wax la qabsadaan ee garab ka dhigtaan ee gaashan ka dhigtaan إننا حوله إني ما تدي إني الميدو وإمالة وإذا قرب تاجناي عدو قاسي هنا أنا كملي أنا كذا إسلام بشيء ناي أهلا ناي ولا لا ناي والمجال أنا جوجنا كاري إنه إمالة قاعد مفروض إنه يكون دوين أنا أجيك إنه يسوي دوين وقدرك كواد لابو وإن بيشو أي كنية شبتي دجال كان مركي هرمر لقى جاربة حسن جرجورت يتيم كيسة دم الجديد ay u jeesanayaan siyaasadda iyo dastuur bedelista iyo waxa weeyaan kharabudaada iyo hantiboobka iyo waxa weeyaan Ethiopian daba u luxidda inay kaniya jabeen oo ay sidaas u diidan yihiin dagaalka inay u galaan qodobka saddexaad waxay tahay in cabsi iyo ruucbi iyo argagax lagu abuuray oo kaba ku tukada iyo ragga leh ay ku abuureen argagax ayadoo la soo warinayo maalmahan ba inuu dhaar ku waday nabadoonnada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada Abgaal nin ay dhahan kaba ku tukada oo beeshaas ka soo jeeda una qaabilsan kooxda argagixisada ee al-shabaab walaayada gobolka Shabeellaha Dhexe ugu magacaaban insha Allah halkaan aan fariin ka direynaa kuma diga doono dadka la dagaalamaya khawaarijta laakiin waxaan leenahay fariin gubaaba ayaan halkaan ka diri doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuhu halkani waa warbaahinta qaranka TV media bartaan ku leenahay Facebook YouTube iyo TikTok beelweynta Abgaal Cismaan oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed kooda ugu balaaran isla markaana xilalka iyo jagooyinka ugu sareeya wadanka ayadoo haysa wixii dawladnimada iyo manfici lagu helay hadii hub iyo saanad tahay inta badan gacanteeda ay si fudud ku galaan ayaa looga taag waayay kooxda argagixisada ee al-shabaab inay la dagaalamaan al-shabaab waxaan ogeyn 2 sano ku dhawaad ka hor in laga adkaaday gobolada dhexe marka laga hadlayo qaybo badan oo kamid ah in lagu jabiyay walow ay sii galaafteen ciidamo badan iyo sidoo kale hub fara badanna ay markaasi furteen xilliyada dagaalka lagu jiray dagaalkii intii lagula jiray wajiyadii koowaad oo dhan waa laga guuleystay kacdoon gobolka Hiiraan ka soo bilowdo beesha Xawaale ay bilowday ayuu dagaalkaasi ku soo bilowday kadibna daawadayaal saaxiibayaal waxa uu ku fiday gobolada Galguduud Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan muuqaalka sii sheergara haddii aad nagu cusub tahayna subscribe iyo follow soo dhibrayna kala gedsan inta dabadeed Xasan Garguurte oo ku mashquulsanaa baabi'inta dawladnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyadoo la garab taagan yahay shacabka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin waxa uu jeestay bedelista dastuurka waxaana sidoo kale sirgaal ama taliye ka dhigay nin Ibraahim Sheekh Muxuudiin la dhigi jiray oo ganacsade ahaa isla markaana raashinkii iyo hantidii ummadda gaar ahaan ciidanka xoogga dalka suuqa Bakaaraha inuu ku shabeeyay dhowr jeer lagu eedeeyay taliye Odawaa iyo taliye Biixi oo ahaa raggii hogaaminayay howlgalladii hore ee al-shabaab cashirka loogu dhigay ayuu xilki ka eriyay wixii intaa ka dambeysay al-shabaab muddo ayay isdiyaarinayeen oo khasaarihii iyo burburkii boqolaalka askari oo ka dhintay ayay markaasi ku diyaarinayeen kuwa bedela booskoodii markii hore waxa lagu qiyaasay 10,000 ilaa 12,000 11,000 inay haystaan ciidan gaaraya laakiin dhawaan waxa soo shacab baxday inay ciidankoodii kor u qaadeen oo ilaa 15,000 oo dagaalame ay gaarsiiyeen haddaba waxay bilaabeen in ay dib u qabsadaan deegaanadii ragga badan ay ku dhinteen saraakiishii ciidamadii macmuusleyda iyo ciidamadii kale ee beelaha yani ciidankii macmuusleyda ee beelaha iyo sidoo kale ciidamadii militariga ahaa ee mutaxilidka madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo la dhisay waxay bilaabeen dhulalkii dhiiga loo shubay in la xoreeyo kumanaanka askarta ay u dhinteen inay dib markaasi u qabsadaan gobolka Hiiraan ayay dhaqaaq ka bilaabeen laakiin beesha Xawaale waxay iska diideen mar kale in ay kooxda al-shabaab ay madaxa siiyaan
dhulkoodana ay qabsadaan dhiig fara badan ayay u bixisay oo dhimasho iyo dhaawacba intaba waa ay ka soo gaareen sidoo kalena dhawaan waxay soo bandhigeen meedad fara badan oo ay ka reebeen kooxda argagixisada ee al-shabaab haddaba beesha xawaadle maadaama khatarta beelaha deriska ah ee walaalahooda haysata sida beesha abgaal ay ayaganu saameyn doonto waxay bilaabeen in ay dhiirigeliyaan walaalahood abgaal laakiin waxaa xusid mudan beelaha abgaal in laga kari la'yahay warkaalaya dagaalama oo la fahmi la'yahay tusaale maalmo kooban gudahood waxaa lagu qabsaday degmooyinka iyo deegaanada kale ah biyo cadde ceelbaraf aqab duco war ciise bakajeex cali iyo sidoo kale raagaceelle weliba biyo cadde meesha la dhaho iyo ceelbaraf xataa guryihii dadku ay lahaayeen iyo hantidii ayay al-shabaab dab qabadsiiyeen oo ay gubeen waxaa cajiib noqotay maalinkii maanta ahaa ceelbaraf ayaa waxaa weeraray ciidamo ay horkacayaan ciidanka gobolka hiiraan ee macmusleyda ah gudoomiyaha gobolka ayraahda gudoomiyaha deegaanka tardo ee gobolka hiiraan iyo rag leh iyo gabdho u dhashay beesha xawaadle ayaa iyaguna warbaahinta kasoo muuqday iyagoo dhahaya war dadkii deegaankan lahaa aaway waanu idiin qabanay ceelbaraf waxaa la soo warinayaa in la waayay macmuusleydii abgaal meel ay ka baxday ee deegaankaasi u dhalatay isla markaana markii dambe ay dib uga soo gurteen ciidamadii halkaasi qabtay deegaano muhiim ah oo ay markaasi ka mid tahay deegaanka daarul nimca sidoo kale waxaa qabsaday argagixisada al-shabaab muddaba way haysteen taa caawana duqeyn aad u culus ayaa ku socotay dabcan degmada run irgood ayay hoos tagtaa marka kooxda argagixisada al-shabaab ee khawaarijta ah ummadda soomaaliyeed wax ay qarax ku dhameeyaan iyo wax ay ikhtiyaal ama dilalka waxa weyn qorshaysan ay ku dhameeyaan iyo wax ayagoo la dagaalamaya naftooda ku waaya ayay noqdeen marka waxaan fariin halkan uga dirayaa nimanka la yiraahdo abgaal cismaan oo ah reer ballaaran waa reerka ah madaxweynaha soomaaliya waa reerka ah madaxweynaha hirshabelle waa reerka ah gudoomiyaha gobolka banaadir taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha maxkamadda sare iyo saraakiil kale oo fara badan gudoomiyaal degmooyin oo aan halkan ugu soo koobi karin tiro ahaanna waa reer ballaaran al-shabaab waxaa idin sheegayaa tiradooda oo idil ciidanka militariga ay haystaan ee ilaa bu'aale ilaa waxa weeyaan gobolada dhexe meelaha ay hadda kaga sugan yihiin jooga waa 15 kun oo kaliya 15 kun oo askari oo kaliya weeyaan kaba soo qaad 15 ka mid ah 10 kun inay joogaan ilaa Jubbaland ama jubbooyinka labada jubbo iyo gado ilaa Bay iyo Bakool iyo muxuu ahaa shabeellada hoose kaba soo qaad 10 kun inay joogaan maxay yeelay meeshaas madaxdoodii ayaa jirta culays ugu badan halkaas ayay saareen 5 kun kaba soo qaada wax meelahan warwareegaya hadda inay ama 7 kun ugu banaan ka soo qaada imseed ku qaadan kartaa inaad soo qabataan ama aad leysaan haddii idinkoo kaashanaya macmusliyada gobolka hiiraan ciidankii xoogga dalka aynu ognahay dowladdu inay si hagar la'aan idin garab taaganto hubka iyo rasaasta weliga saanad la'aan ay sidoo ku dhaceen haddii maalin walba aad carartaan oo shalay meeshii ragga idinka dhinteen aad u banaysaan oo maalinba magaalada la qabsado dadkiina sakawaadkii iyo waxyaabihii la sheegayay kondhomkii iyo wixii gabdhihii la xoogayay wixii aad ku soo celisaan waa idin sharaf daro inta gubaaba iga qaata walaalayaal idima nicbi waxba iskuma hayno aniga adinka dad walaalahay tihiin laakiin waxa idin sheegayaa khawaarijta al-shabaab idinka mas'uuliyadii ugu sareeyay ee dalka mas'uuliyiinta ugu sareeyay ee ka dhasheen hub iyo saarad iyo wax kastan heli karo oo la og yahay deegaanada qaarkood gurmad la'aan inuu ku dhaco laakiin idinka wax kasta idin fudud yihiin ama qabyaalada xasan shaqaha ama tabaarka ahaatee inaa xabada diidaan iyo inaa dhimataan waxayna soo xasuusinaysaa odaygii waraysiga laga qaaday ee la yiri maxaa beelaha calaadka ku dhacay oo ma lacag la'aan baa jirta maxaa hub u samaysaysan u dagaalamaysan macnaha maadaama Soomaaliya xog wax lagu kala qaadanayo ma wuxuu yiri dadkii aan dhimasho rabin buu yiri hub la'aanna ma hayso dad la'aanna ma hayso dadkii hub waa kala karnaa macnaha lacag la'aanna ma hayso dad la'aanna ma hayso dadka ayaan dhimasho rabin marka walaalaha abgaal waxaan leeyahay guud ahaan nafta hura oo kulli cid noolaan samalaha waa dhimanayaa niyo gobonimo iyo sharaf ku dhinto waxaa jira ciidamo ayaguna ka soo jeeda beesha habargidin oo ka timid gobolada dhexe oo la soo warinayo qaarkood deegaanadan inay ku dhinteen iyaga oo markaasi argagixisada al-shabaab la dagaalamaya waxaa ceeb ah marka nin dhowr boqol oo kiiloomitir ka yimid inuu u dhinto deegaankaaga dadku marka waxa weeyaan dhimashada ha ogolaadaan al-shabaabna tabar badan ma lahane hal iska dhacsho intaas ayaan leeyahay walaalaha kale oo waxaan leeyahay gobolka hiiraan degan ee xawaale nimanka waa walaaladii weliba dad waa isugu sokaysaan waana isku xigtaan
haddaana khaldanayn waxa weeyaan dhanka mudulood qaraabo aad weyn ayaa ka tihiin oo daaro mudulood iyo waxa weeyaan kole cismaan mudulood cismaan dalandoolo mudulood miya iyo daaro mudulood baan filayaa inaad kasoo kala farcanteen marka nimanka walaalihiina dheega ku haya intii aad garab sii kartaana garab siiya ayagana waxaan leeyahay war ciidii kama badna idin kamana hubadnee ilmaadareyaal dagaalama intaa waa intaa qodobka labaad oo soo noqonaya waxay tahay kooxda argixisada ah ee khawaarijta ah meel kastoo ay joogaan ama al-shabaab ha ahaadaan ama daacish tusaale yar baan siinaya hadda gobolka bari waxaa lagula dagaalamayaa daacish waxay ku dagaalamayaan dhul bannaana weeyaan dhulkan haddaan ka hadlayno shabeellada dhexe oo geedgeed ku yaala iyo beero iyo meelo lagu dhuntama waa leeyihiin dabcan laakiin waa dhul bannaan bari waxay dagaal kaga jiraan ciidamada puntland oo kaashanaya dadka shacbiga ah oo intaasoo nin ay ku dhinteen dhimashadana loo ogolaaday dhul buuro leh ah oo godod leh oo qarar leh oo wax kale iska dhaafay duqeynta diyaaradaha xataa ay sijaanis ay iska heleen ayaa lagu dagaalamaya rag baa ku dhimanaya laakiin muhiimaddu waxay tahay natiijadii dagaalka si fudud oo waqtigii la qiyaasiyay ka kooban ayaa lagu gaaray natiijo 2 sano la qiyaasiyay in lagu gaari doono dhasaan oo ah meesha ugu dambeysay ay ciidamada puntland gaareen hadda meelo yaryar oo ay ku dhudhuumaalaysanayaan keliya ayaa soo hartay meelihiina hadda waa lagu raajoogaa marka muhiimaddu waxay tahay waa in dhimashada la ogolaado muhiimadda ugu weyn ee dagaalka argixisada ama daacish ha noqdo ama al-shabaab waa in la ogolaadaa dhimashada musalsalkan dheer oo waddankeena ragaadiyena waa in laga takhaluso oo kooxaha khawaarijta ah la iska celiyo muuqaalku intaasuu ku kooban yahay abgaal cismaan waa reer sharaf leh oo ballaaran shiiqii shariif leh maahan inaan caynayo maahan inaan cambaaraynayo laakiin waxaan leeyahay walaalayaal dagaalama oo waxa weeye cadowga iska dulqaada ayaan idin leeyahay maadaama imkaaniyaadkii wixii dowladnimada lagu haystay oo dhan hadday macaan tahay hadday qaraar tahay adigu haysataan saasaan idin leeyahay hirshabelle uu buuq ka taagan yahay madaxweynaheeda idinkaa haysta oo siduu kusoo baxay madaxweyne cali guudlaaw waa la ogyahay madaxweynihii soomaaliyana idinkaa haysta gudoomiyihii maxkamadda sare idinkaa haysta taliya ciidanka xoogga dalkana waa taliya odowa marka wax idiin dhiman oo kale ma jirto marka maadaama dagaalama ayaan idin leeyahay waana idin salaamayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta allaha jabiyo insha allahu tacaala guuldaradooda ayaanu mar walba u joogi doonaa waana laga adkaa doonaa biidnillah baari